murtida maanta naago waa labo kabane kabto iyo kabane jebiso haddii aan istusaalayno qaayada abuurista ilaahiga ah sirta nolosha jiristeeda waxaa sabab u ah arrimo iyo xoogad isku tiirsama oo ka dhasha dhaqanka guude aadanaha markii ay kooxdii dani isu keentayba isu celiso howlaha nolosha qof walbana uu geesta uu ka xigo ka soo rogo iyagoo kaashanaya wixii ay haystaane hantiya xoogaggaas nolosha dad iyo wax kale waxay ahaadaanba kii geeskiisa gaba waxtarkiisa la la'aada murtideennan maanta oo halkudheggeeda meeshaas laga soo qaatayna waxay ku qotontaa dhaqanka reer guuraaga soomaalida ee labada isu dhaxda midba howlaha qoyska qayb weyn xil qaado iyagoon islamarkaana ku kala maqnaanayn wixii soo kordhiyo dhibaatadii la soo gudboonaata naago waa labo kabane kabto iyo kabane jebiso oo halkudhegga murtida ahna waxaa loo yidhi biliga guurka ayaa haweenta kii gaarinimo daacadnimo iyo karti isku darataa markii ay guri gasho hanataa reerkeeda xag dhaqan iyo xag dhaqaalena ay hore marsiisaa kolkaasaa la mahadshaa oy ahaataa kabane kabto ilayn gallad aanu ninku horteed haysan bay ula soo hoyataye kii karti darro amase daacad darro haysaana ay markii ay guri gasho reerkii ula hadhoo ku yidhato hawraarta qaarkeeda ah kabane jebiso oo ay saas ku ahaato kii lugooyo ninkeeda ula soo hoyatay aanse intaas uga harno macnaha hawraartiyo meelahay ka soo jeedeen waxay leedahay duluc ah inay haweenku yihiin halbowlayaashii waraabinayay dhaqanka iyo dhaqaalaha guryaha waase haddii lala garanhayo raggiina garab ku siin hayaan haddana bal aynu hoos ugu dhaadhacno murtida ay hawraartu ku hulluban tahay haddii uu ninka raggaahe soomaaligaahi shalay markii uu ku noolaa bulshadii reer gooraannimada uu u baahnaa haweenta laleeyahay kabane kabto maanta oo uu ku nool yahay bulsho magaali ah amase la halmaalo ayuu uga sii baahi weyn yahay maxaa wacay kaba soo qaade ninka ay hanti wanaagsani soo gelayso isagoon xila lahayn ee misana ay hantidiisii dab iyo suluf ku hurinayso uu amaahasho ka bixi waayo intay hawadiisu u furtay irido badanoo uu dhaqaalihiisu ku hoobto kaasi waa jabane waxna kabi kara kaalmo ilaah ka sokow haweenay gaari ahoo uu helo dabadeedna ay noloshiisii fiicnaato markii ay hantidiisa u hagaajiso hawada badanna wehel uga ahaato inkastoo hawraartan lagu gorfayn karo arrimo badan oo guurka saamaynaya gaar ahaanna aad moodo inay haweenka farta ku godayso haddana waxaan uga gaabsanaynaa in aan arrimaha guurka lagu guulaysan karin haddii aan abbaartiisa labada dhinacba la wada garan garabna la isku siin tilmaamaha kabane kabto iyo kabane jebisana ma aha inay xilka guurka haweenka keligood guudka ka saarayaan ee kala wanaagsanaantooday tusaale u yihiin